dadweyne muddo dheer kadeedna ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kordhiyo wanaago kullibaa israace ha kulmeen dadweyne kaskooda iyo maankiyo ha kulmeen dadweyne kaskooda iyo maankiyo kartiyo awoodood haysu keensadeen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا الكسر ولا برنامج كي عاوي وحاول كسب سنة دون الدور وحاول برنامج كي عاوي أهم دون الدور يا قوم سويدرسي وحنا كل جه في دورنا هدي الله إنه دور عوان كيد وياهي تابع ونكسن marka lagu guda jiro geedi socodka waxbarashada ama hayaanka waxbarashada teeba wanaagsan in labada heer ee waxbarashada sare la israaciyo ama hakad la geliyo oo la kala jiro tusaale ahaan heerka koobaad ee waxbarashada ama bachelor oo kale qof marka uu soo dhameeyo ee uu gudbayo heerka labaad inuu hakad geliyo oo waqti qaato iyo in uu si mutawaatir oo isxigto u wado keeba wanaagsan doodeen caawi qodobkaagu ku saabsanaan doonaa waxa igala qayb geli doona doodeena Waarag Maxamed Faarax oo heerka labaad ee waxbarashada ka qaatay Electronic Communication Engineering Cabdicaziz Muumin oo heerka labaad ee waxbarashada ka dhameeyay IT Dimahad Maxamed Faarax oo heerka labaad ee waxbarashada ku dhameeyay ka qaatay Technology of Transportation Engineering iyo Mustaf Abdi Noor oo isaguna heerka labaad ee waxbarashada ka qaatay commercial ama ganacsiga inta kadib waxaan si toos u guda geli doonaa doodeena caawi inta aan dooda gelin waxaan rabaa sidoo kale inaan mahad gaar u celiyo qabanqaabiyaashii doodeena caawi ama barnaamijkan quruxda badan raggii soo qabanqaabiyey oo ugu horeeya gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee SSB gudoomiye Xasan Axmed Ciid sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxa waxbarashada Masar Cabdixamiid iyo sidoo kale Cabdirasaaq Laalane oo iyaguna aan u mahad celinayo aan u nimaano barnaamijku inta uu socdo xoog badan baa la isdhaafsan doonaa dooduna waxay ahaan doontaa mid talantaali ah oo afarta xubnooda sharfan caawi nagala qayb galaysa ay isweydaarsan doonaan qof walba ra'yigiisa sidii uu arrintani u arko iyo halka uu ka taagan yahay waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Waarag Maxamed Faarax injineer soo dhaw aad baan u shaqeeyay Cabdirashiid awal waxaan rabaa inaan xiriyo dhammaan martiga ka qaybgalka barnaamijka iyo ururka soo agaasimay ugu horeeyay gudoomiyaha iyo arrimaha waxbarashada iyo dhammaan martida kale caawa meesha joogta haddii aan kusoo dhawaado barnaamijka oo ku saabsan keebaa fiican ama wanaagsan in waxbarashada heerka koowaad ilaa la isku wado iyo in loo dhaxaysiiyo gaab aniga waxaan qabaa inaan wax gaab ah loo dhaxaysiin aan waqti la dayicin baan qabaa oo arrinta la isku wado maadaama sababtaan socdayaan waxa weeye aniga asaas ahaa oo waxbarashadeeda iyo digriigayga markaan dhameeyey intii processkii socday inaan jacaanta kale ku biiro mooyaane wax kale iga khasaaray jira marka mar walba waxaan ayadaya maadaama aan ka warqabo waxbarashada in la isku xiriiriyo inaan caawa doodeeda halkaan taageersanahay in la isku xiriiriyo aan waqtiga la dayicin aad baad u mahadsantahay injineer Waarag sidoo kale waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Cabdicaziz Cali Muumin soo dhaw injineer aad baan u mahadsantahay injineer Cabdirashiid Duraan ugu horeyn waxaan rabnaa in hadda Allah subhanahu wa ta'ala noo soo geliyo caawa inaan halkaan madashaan quruxda badan aan isugu nimaano marka labaadna waxaan rabay inaan u mahad celiyo madaxda kale asxaabta sharafta leh ee doodan caawa nagula wadaagayso iyo gudoomiyaha ururka SSB ee hawshaan noo soo qabanqaabiyey madashaan quruxda badan leh iyo Deer Cabdixamiid madaxa waxbarashada isagana kasoo shaqeeyay hawsha ay soo geliyeen iyo qabanqaabada iyo barnaamijkii
haddaan gudagalo waxaan isleeyahay caawa topigeena ama barnaamijka aan rabno inaan xog isweydaarsanno wuxuu noqon doonaa insha allah qeybaha wanaagsan qofka in bachelor degree-ga marka uu dhameeyo kadib inuu gaab geliyo waqti xoogaa nasiina ama waxbarasho ama gaab inuu geliyo meeshaas iyo in master degree-gu direct u bilaabo qeybaha wanaagsan marka asa shakhsiyan adciis ahaan waxaan isleeyahay in ay ila haboon tahay inay haboon tahay in qofka direct masterki inuu hore ka bilaabo maadaama waxaan u tiirsanaa isleeyahay qofka maadaama uu fircoon yahay oo qof caaboon u yahay maadaama baarkii markuu dhameeyaba in grade-kii markuu helo xoogaa qofka fresh camal ugu ekaana maadaama grade markuu gaarada freshment iyo motivation iyo waxyaaba badan oo qalbigiisa ku jiro marka sidaas darteed inuu kasii faa'iidaysto uu masterka sidaas ugu sii xijiyo isgaab gelin marka aniga waxaan isleeyahay ra'yigaas in xoogaa viewgiisa aan ajiri karo waana mahadsantihin aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdicasiis muumin waan ogaanay fikirkiisa sidoo kale waxaan rabaa markaan inaan u gudbo saaxiibkii cabdimahad maxamed faarax soo dhawo cabdimahad bismillah markan waa salaamintii dhammaan asxaabta igala qayb qaadanaysa barnaamijkan iyo asxaabta soo qaban qaadaysa ugu horay guddoomiyaha iyo waaxda qeybka ardayda iyo adiga oo ah daliyaha dhammaantiin waan salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam aniga aragtideeda ku saabsan qodobkan ah in ardaygu uu isku xiro bachelor degree-ga iyo master degree-ga labada heero heerka koowaad jaamacadda iyo heerka labaad inuu isku xiro iyo inuu space u dhexaysiiyo spacekaas u dhexeeyaana wax kastuu noqon karaa ama inuu soo shaqeynayo ama inuusan shaqeynayn oo iska fadhiyo wax badan way noqon kartaa marka anigu waxaan qabaa inuu gaab u dhexaysiiyo gaab hadduu u dhexaysiiyo horta waxaan ognahay heerka waxbarashada uu markuu soo bilaabay inuu xilli badan soo waday tusaale ahaan secondary-ga oo 12 sano ama heerka waxbarashada hoose oo iskuolkii oo 12 sano 4 sano oo bachelor 16 sano oo kursi soo fadhiyay wax soo baranayay waxay u baahan tahay inuu uusan macnaha 2 sano oo kale uusan kusii dari karin oo horta uu refreshment oo mental refreshment sameeyo maskaxdii baa xoogaa nasiina qaadato nasiinadaasna uu uga faa'iidaysto wax sidaa anfacaya iyo inuu shaqeeyo oo cilmi uu soo bartay uu baraadka u bedelo marka qodobkaas waa mid ka mid ah qodobada aan isleeyahay way ku habboon tahay inuu sidaa sameeyo marka qodobka labaad aan isleeyahay waa macquul oo uga faa'iidaysan karaa waqtigaasna waxa weeye inuu suuqa soo ogaado tusaale ahaan bachelorka maaduu soo dhigtay maadadaasi takhasusyo gaar ay leedahay hoosesii leedahay waa inuu heer ogaadaa waxaa suuqa meesha uu rabo inuu ka shaqeeyo dalka hadduu ku noqonayo dalkii maxaa looga baahan yahay laakiin hadduu isku sii daba xiro ma helayo xog badan iyo wax dalkeena uu baahan yahay meelaha muhimka ah marka taasna waa muhim inuu bal horta soo shaqeeyo wuxuu intuu bachelor kusoo dhigtay uu kusoo shaqeeyo uu ogaado waxa ka dhiman iyo waxa uu baahan yahay dalkii muxuu baahan yahay kulliyadee baa ugu habboon marka taasna waa qodobka labaad aan isleeyahay waa macquul inuu uu gaab u dhexaysiiyo marka intaasaan kusoo koobaya waad mahadsan tahay master cabdimahad waxaan rabaa markaa inaan u imaado mustaf cabdimuur si aan asna fikirkiisa ogaan usoo dhawo marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam waxay mahad u sugnaatay allihii suurtageliyey inaan madashaan warka badan isugu imaano marka labaad waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkay rashiid duulaan oo si qurux badan barnaamijka noogu qaadan dhigayo marka saddexaad waxaan rabaa inuu mahadceliyo saaxiibadii dhigeliya ah oo nala soo horjeeda caawo madashaana yani doodaana aan ku midownay intaas markaan dhaafiyo waxaan rabaa inuu mahadceliyo guddoomiyaha ardayda soomaaliyeed ee gobolka banjaab master ciid waxaan rabaa oo kale inaan mahadceliyo guddoomiyaha waxbarashada master cabdixamiid iyo ku-xigeenkiisa cabdirsaaq lawlaana intaas kadib aniga horta caawa qodobkeena aada uu yani uu xasaas u yahay muhiimad goonina uu leeyahay si janaal haddaan u dhaho labada qodob baa ma kala dhigtaan oo waxaa waaye mid walba dhinaciisu faa'iidadiisii khasaaradiisa u wato markii laga fiiriyo khasaare maha waa maybe markii laga fariyo faa'iidana waa imaan kartaa laakiin aniga caawa waxaan taageeraa qodobka ah in ardaygu gaab u dhexaysiiyo master bachelorka iyo masterka sababo badanaa jira aan ku taageerayo qodobkaas waxaan rabaa laakiin inaan ku hormaro laba qodob oo muhiim ah labada qodob oo muhiimka waxaa waaye qodobka koowaad in ardaygu uu yani 4 sano
kaba soo qaad 4 sano bachelor soo waday oo soo dhamaystay markuu soo dhamaystay wuxuu u baahan yahay qofku ardaygu si uu master isugu diyaariyo inuu yani uu work experience haysto waa qodobka koowaad ugu muhiimsan qodobka labaad waxa waaye ardaygu yani specific field-ga uu rabo inuu yani ku takhasuso waa inuu by practical yani uu cilmi ku filan ama aqoon ku filan oo haysto yani by technical oo uu diyaarsan yahay marka labadaas qodob iyo qodobo badan oo ku taageeraya jirto intaas aan kusoo gudbinayaa marka hore aad iyo aad baad mahadsantihiin aan u imaado dooda si toos ah waxaan filayaa hadda waan fahnay in saaxiibadaydu ay laba koox kala yihiin kooxda midig iga fadhida engineer Marag iyo master Mumin oo iyagu aaminsan qabana sameeyayna inay ku socdaan in waxbarashada heerka labaad iyo koowaad mutawaatir laga dhigo ama la israaciyo waxa kala aanigay qodobooyin bay uskadeen oo ay ka mid tahay in ardaygu ay wanaagsan tahay inuu mar walba wixiisu iska kala jirin oo waqti uu sakal wado sidoo kale saaxiibadeeda dhinaca bidix fadhiyo mahad iyo cabdimahad iyo ninka la yiraahdo Mustaf iyaguna waan garanay doodooda oo waxa ay leeyihiin wayna sameeyeen wayna ku socdaan oo waxa ay leeyihiin dabcan ardaygu waa in uu helo waqti uu ku nasto ama uu ku shaqeeyo ama uu ka helo xirfad gaar ah uu samaysto ama uu ka fikiro wixii labaad uu sameyn lahaa intaa waa garanay waxaan rabaa markan inaan u imaado engineer Marag waay dabcan dooda waxay ku fadhidaa in ardaygu uu israaciyo adigana sida aad noo sheegtay waa heerka labaad iyo koowaad waa soo raacsan marka bal sidee kula tahay maxayse faa'iido oo ay leedahay inuu ardaygu israaciyo okay أنا أقول أستعمل شيء سؤال مهم أسئلة عالية واحدة من اللي فعلت دونا تقدرن فيو بأكود أمسي رواق نحو وكود دونا كلا يعني إنتان سؤال شيء أقولي محربا إن وحي عن افتبيوء قلت محال لو بهين هاي المستر لو آذي حاسب أن تسرف عن المستر محل لو آذي من الواضحين كرنوا يعني محي مركا يعني marka waxa isleeyahay qofku markuu rabo darajada labaad ee waxbarashada sare uu rabo inuu u gudbo waxyaalaha ugu muhiimsan ee uga baahan waxa weeye inuu dad markaa hayo horumar ka sameeyo tusaale ahaan batchkaad soo dhamaysay batch markaa soo dhamaysay waad garanaysaa waddada aad u socotid waddaa haysa wadda waxay yani inaad fursada shaqada ee jirta aad hagaajisid oo yani possibility-gaaga adiga lagu qaadan karo oo aad u sareeyo يعني already waxaan ku baranay waxa uu qofku inuu isku nafilaado shaqaystaan marka taxsiin fursad العمل أهم شيء waxa isleeyahay qofku marka uu master inuu bilaabo inuu fursadda baccalaureate iyo masterka marka la kala qaadanayo fursadda masterka aad u sareysa waa talabaad isleeyahay uu doonayo qofku inuu sameeyo ta saddexaad aan isleeyahay masterka waxa loo aaday waxa weeye develop personal interest qof yani شخصيتي وحي وجعليها قف إنه develop قريب واحد تدوير مسرح الشخصية يعني مسرح حتى هذا لا هاي صار عام واحد ربطة إنك كومبيني ميلك قاعد يذكره ومسرحات خاصة أو كومبيني قاعد عليه ذكره مسرحات عرفت الشخصيات هذا إنك بيلك قاعد يذكره هذا هو المرء والسنس تستحب وحوية إنه مستويات أرض صغيرة وكالقف مهايب وأنا يعني كواليفاي قريب يعني صراحة واحد غير ما توزير أو كلا أما برلمان أو كلا تعرفين ما قلت إيش هو هذا كواليفيكيشن بدل يعني بهاي أما سيو أو كلا سو كل واحد غير إن يعني تدور أتقسم يصير مستواها وحبر الشغل وأدنيرسي في قاعد أتليست ديجنتي جاهزتي هيك كانوا قاعد تقول حكتوا حويه إنه الشغل كوني وكلا ويسوي حس وصل نستو صراحة وقت كلا واحد وهرب من السيد وحرم وصل من السيد waxbarashada waxay u galaysaa aduu majaal gooni oo gooni u leedahay inaad aad ku horumarsatid oo waxa ku samaysatid aduu tusaale waxaan kugu soo qaadan karaa qofka ganacsadaha oo kale ganacsado kala tahay bachelor baa qaadatay ganacsada tahay master markaa rabtid inaad noqotid horumar baad ka samayn kartaa majaalkaaga oo kale oo yani waxyaalaha macaynka ku ah ta labaad ta ugu dambaysa asileeya waxa weeye in aad buuxisid shaqooyinka laga baahan suuqa requirements yani mutalabaad yani waxa jira meel walba shaqo doonatid baa requirements baa jira
requirement-ka inaad soo buuxisid aad soo dhamaystirtid baa sida ugu dambaysa sidoo kale waxaan isleeyahay masterka marka la soo gaaro qofku wuxuu samayn karaa career change yani inuu bedelo wixii uu soo waday marka waxaa la yidhahdaa laa qiimata liictiraafika bilkhata idaa lam tubda juhdan xaqiiqiyan litasxiix hada alkhata yani tusaale ahaan marka aad rabtid inaad master baccalaureus soo qaadato oo kale baccalaureus markaa soo qaadatay masterka rabtay inaad gudubtid oo kale master markaa u gudubtid waad bedeli kartaa masterkaagii oo baadkaagii hore aad soo waday waddadii hore waa ka leexan kartaa waxaa la yidhahdaa marka qofku khaladka uu geystay inuu qirsan yahay wax macnaa uma fadhiyo waxa macna ugu fadhiya inuu bedel sax ku sameeyo khaladkiis oo kale oo waa bedeli kartaa marka waxaan isleeyahay qodobadaas waa qodobada looga baahan yahay in master ahaan la xaqiijiyo waa tahay waan garanay injineer Malik si fiican baa ku fahmay doodaada dabcan waxa weeye ardaygu haddii uu sii wado waxbarashadiisii uu si mutawaatir ama isku xigta uu sii wado waxyaabo badan buu xaqiijinayaa hadalkaaga iyo ku garabsanaya dabcan qodobka ah in sii wadida muxaafadkeedu ha ii dambeeyo waxaan rabaa dhanka kale inaan jaleeco waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo ustaad Cabdimaan faa'iidada ay leedahay inuu ardayga kala jaro dada aad haysid masterka markaad u gudbisid inaad horumar ka samaysid iyo development waa u baahantay waa ka koowaad taasina master aad leedahay ka labaad waxa weeye taxsiin fursad العمل ama uu bachelorka iyo masterka waqti u haysiyo waa maxay duran saaxiib aad baad u mahadsan tahay hadda waxaan sheegay laba qodob oo muhiim ah oo la rabo in la tixgeliyo keeni kartana inuu kala jaro marka qodobka kale waxaan sheegnay inuu u baahan yahay refreshment oo ay qofkan intaasoo sano wax soo baranayay intaasoo sano kursi soo fadhiyay intaasoo sano aroortii xaadirayay inuu bal horta helo waqti uu ku nasto tusaale marka waxaa kugu filan ardayda jaamacadeena dhigato kale ama jaamacadaha kale oo dibadda dhigtaa qof kastaa wuxuu leeyahay marka bachelorka waa hawl badan baa u taala hawl badan uu samaynayaa wuxuu ku xisabtamayaa masterkiisa inuusan hawl badan qaban uu leeyahay inuu waxaan rabaa waxaan waqtiya master aan hawl badan qabanayn oo uu kalasi badan la xaadiray waayo already waa maskaxaan buu u daalay qofkan marka haddii uu kala jaro uu nasasho helo uu shaqadii aado uu soo shaqeeyo ama uu wax kaleba soo qabto uu yaan xog soo ururiyo sanad xog ururina wuxuu masterka ku diyaarin lahaa taasi wax ka qayb qaadanaysaa inuu mental refreshment u helo saaxiibkii wuxuu sheegay inuu u baahan yahay inuu qofkaani suuqa la jaan qaado wax uu barto wax suuqa hadhow uu ka anfacaya oo suuqii qiimo kale laakiin aadan baran maado suuqeedu xaami yahay oo buuxo habar kastaba taqaano see uu ku taa ku baran karaa waa inuu isweydiiyaa hadduusan qofkii xog helin waxa suuqa looga baahan yahay oo suuqiisa uusa tegin ma baran karo marka midda kale haddii kale oo aadan toos usii bilowdo waxaad xogta waxaad ka heli doontaa meelaan adiga ahayn oo qof kastoo aad xog weydiiso wuxuu kuu sheegay waxaa isagu jecel yahay hebel saaxiib masterkii baan rabaa inaan bilaabo maxaan bartaa qofkaas wuxuu kuu sheegaya waxa isagu jeclaan lahaa laakiin kama turjumayo jacaylkaaga iyo waxaad doonayso marka laakiin adigu haddii aad suuqa haddaad tagto oo aad dalkii soo aragto waxa looga baahan yahay facultigaaga waxa baseka u ah meelaha adigu looga baahan yahay aad takhasus ku noqon kartid markaas waxaan is leeyahay qofkaasi xog badan uu helayaa hadhowna wax dalkii anfacaya uu baranayaa tusaale waxaan usoo qaadan karnaa doctor Darik Suwaydaan oo u dhashay waddankan Kuwait baa wuxuu yidhi waxaa jiray wiil Kuwaitiyaana oo wuxuu soo bartay engineering forestry waxa la yidhahdo qiimeynta engineeringka kaymaha waxaan ognahay Kuwait inay tahay dal saxraa marka wuxuu soo bartay dalkii ma ka shaqayn karaa dalkii wuu soo bartay maadada laakiin dalkii waa saxara kaymo mala muxuu marka soo bartay taasna wax isweydiinaya marka labadaas qodob aan hore u sheegay waxaa kaloo ii labeeyay oo aan kusoo dari karaa qofku marka uu tago uu refreshment uu sanadkaa uu tago ama uu dalkii aado bachelor soo wata uu shaqo aado waxa uu ogaanayaa meelaha uu ku liito iyo wuxuu kala ogaanayaa qodobka labaad uu ogaanaya waxa weeye hadhow meelaha uu u baahan yahay inuu iska soo dhiso iyo aqoonta uu u baahan yahay
aqoonta uu baahan yahay hadhow marka uu masterka tago waxaa jira waxyaaba badan oo uusan markaa qofka u baahnayn marka inuu qofka ogaado bal horta maxaad u baahan tahay kuliyadaada iyo waxaad samaynaysid maxaa toos ula xiriira marka taasina waa muhim waxaa kaloo jirta saaxiibka waxaa kaloo sheegay inuu qofku bedeli karo uu qofku kurkanka bedeli karo ama wuxuu hore usoo waday uu change samayn karo waa sax uu samayn karaa cilmi baaris laga sameeyey maraykanka waxaa dhacday waxaa cilmi baaris lagu sameeyey 3,000 oo qof baa waxaa la weydiiyey waxaad barateen ma ku shaqaysaan dadkaas waxay barteen science iyo art labadaba way barteen 70% waxay sheegeen inaysan ku shaqayn waxay hore usoo barteen laakiin wax kale oo ka duwan ay ku shaqeeyaan wixii ay soo barteen taasi waxay keenaysaa dee suuqii baysan jaan qaadi karin waxay soo barteen iyo suuqii baan markaa iskeeni karin marka qofku waa inuu helaa xog waa muhiim inuu kala jaro oo uusan waxay isku soo xirina ama waxaan aaminsanay sababahaas marka la fiiriyo inay muhiim u yihiin Mustafa ma la qabtaa saaxiibkaa fikradiisa maxaadse kaga duwan tahay ama faa'iidooyin oo ku jiraad is leedahay in la kala jaro waxbarashada sare iyo calashaan waxbarashada qaybteeda koowaad iyo labaad masterka iyo bachelor bulshada kubaad waa maasan tahay saaxiibadii sidoo kale wanaagsan yihiin wallahi saaxiibkii si yani 100% waa la qabaa qolka kan kali waa jira qodobbo aad u muhiim صح waxaa jirto caadiyan markii ardaygu dugsiga sare dhammaysto oo secondary levelka uu dhammaysto ardaygu waa laga yaabaa intuu secondary ku jiro inuu yani isweydiiyo talow intee bachelor yani maadada bartay ama maadada baranay markuu isweydiinayo su-aalahaas ardayga maxaa sababay inuu su-aalahaas isweydiiyo waxaa sababay yani waa yani information ma haysto maahan qof oo informative maahan wax ku filan ma haysto waxaa laga yaabaa markaas kadib soo wareersan ama inuu ardayga toos u aado waxbarasho bachelorkiisi maadadu rabo ardayga soo ku fiicneen tusaale kale soo practical subjects ku fiicnaa inuu yani u aado maadooyinka theory-ga oo bachelorkiisi marka joogo waxaa ka badbaada dadka talooyinka iyo yani advice-ka helo ama dadka wax barteen ama u tegay dad macallimiin u tegay oo talooyin soo qaatay ardayga markuu soo aado soo practical ku fiicnaayo maadada theory bartay markuu bartay kadib bachelorkiisa oo dhamaystay ma ahanin marka ardaygu wadadii hore shalay oo isagoo waxaa laga yaabaa in da-da udhiisay waxaa laga yaabaa in yani uusan information badan helin sababta darteeda uu aadi maado aan asaga fit ku ahayn marka ma ahan mar labaad inuu wadadii kusoo socdo masterkiisana kusii daro yani waxaa career yani sheega waa sax career change qofka inuu sameeyo fiican tahay ardaygu laakiin maraa loo baahan yahay inuu sameeyo ardaygu markuu arko inuu maadooyinka practical ku fiican yahay inuu theory kasoo jeesto oo practical kusoo jeesto maadooyinka practicalka laakiin kormay dhaceen waa markuu is ogaagsan laakiin hadduu wixiina ay noqdaan yani continuous yani progress yani ardayga mu malaynayo in yani loo soo waxyoonayo uu ogaan doono taas midaasaan leeyahay waxaan kaloo leeyahay ardaygu markuu bachelorka dhamaysto uba dhamaystay whatever ku dhamaystay bachelorka ardaygu dhamaystay markuu dhamaysto maxaa laga rabaa ardayga yani waqtigaas uu bachelorka ardayga dhamaystay waa arday yani oo productive waxaa loo baahan yahay hadduu shaqo helo ma shaqayn karo marka how qaabku u shaqeyna waa su-aal bachelor ku dhamaystay muusa shaqeyn ka soo master ku daray wuu dhamaystay markuu dhamaystay meeshuu shal baadka uu joogay master yani master levelkiisa ardayga kalmaha sababtoo ah ma haysto work experience market opportunity-ga kama warqabo soo waa saaxiibka sheekh Cabdimaad waxaa looga baahan yahay maadada looga baahan yahay yani niche market-ka ardaygu oo rabo inuu taageer garayo yani ma jirto qofkaas meesha wax maqan ardaygu marka waxay noqonaya inuu yani haddana godkii uu shalay kusii socdo maxaa loo baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay ardayga tusaale oo kale bachelorka inta badan waxaa waaye si oo program loo gaaro maadooyin every subject arday waa inuu taageero waa inuu taabto waa intaasoo 12 maado yani ama 10 maado inuu semesterka qaato markuu qaato 10ka waa inuu taageero intaasoo muqarrar yani isaga bas intaasoo leeyahay maadada isla arday waxaa rabaa inuu si fiican yani bachelor oo soo wax badan aqri wax badan fahmo maxaa looga duwanaa wuxuu isku diyaarinayaa workforce janiska iyo soo market opportunity isku diyaarinayaa budgetkiisa oo fiican ardaygu inuu xataa waxbarashadiisa meesha ku keenay oo ku shaqeysto masterka waxaa waaye waa ardaygu inuu isbaraawo daa ku socoto waqtiga ku socoto inuu isbaraawo inuu is ogaado budgetkiisi maadooyin badan taageeray wuu bartay koorsooyin badan oo bartay ardayga waxaa rabaa arday yani bas inta badan waxaa naqaanaa bachelorka waxaa waaye waa theoretical approach inta badan waxaa la qaato waa theoretical approach laakiin masterka wuxuu ugu duwan
wuxuu uga duwan yahay masterka waa practical approach ardayga marka hadduusan by practical suuqii ama marketkii ama institutionskii oo isku baraaweyn waxaa imaanaysa ardayga inuu isku baraaweyn galaaskii galaaskii isku baraaweyn kara waa naqaanaa galaaska masterka si u socdaan waa dareemi karnaa yani waxaan xasuustaa taariikho badan ka dhacay galaas aan leeyahay hadda oo MBA microfinance ama baranayo oo maadada ay by practical ay ahayd waxaa jirta maado software oo SIP software oo lagu shaqeeyo accounting software accounting package يعني محل بهنا أرضي وحنا نقولها أرضي يعني إذا توينكي إنتري وإنه يعني شيء أرضي ريكورد كريه هاو ريكورد كرينا وباي براكتيكال يعني أبو باتشر صوبرتي صور شقيني وجاني ما دل حق فنيس وجاني يعني كير كان السبجكتس كان كورس كان وجاني مو مرينا إنه قف أرضي وقف أحسن كلام صح وقف أحسن كلام وبدل يعني واحد شفت له بقرة هذا واقع اسمه وحلاته أرضي وهذا واقع لما هو ما هذا وهذا talent هذا واقع يعني هذا واقع لما ما يبغى talent أنا كحنا تعرض إنه مركو وش talent كمان لكن دارت السيك سموث يعني level معقولة بسرعتي اسمه واقع لما أردت نعيش كجالس وحاول بهان هاي بس باتشوارك لما يسوق مكان لما يستي المسوق كانسل سوق يلا هذه سوق يتك كانس كان إله يدوه قدر وهو البوها وينسب واحد على القريب هذه إله يدوه قدره كانس كان كفى يسوق كفى كانس كان محاولة كتار marka ku biirtid yani institution maxaa kartaa marka hore waxa muhiim ah in waxa yani laga yaabo chance ilka waxa kamid ah yani organizational culture ka dhan waxa ka jiro shaqo suuq organizational behavior attitudes ka yani norms ka company norms ka organic inta marka waatid waxa dhacay yani sheeg corporate ladder yani waxa sameyn kartaa waxa la jiro corporate ladder oo qofka soo shaqaalin ku bilaabo level promotions ajiro waan qana hierarchy promotions ka waxaa laga yaabaa asoo bachelor degree haysto inuu CEO ka mid ka noqdo maxay ku imaanay inuu yani maskaxiyan u diyaarsan waayahay mental awareness aan diin aad iyo aad mustafad baad mahadsan tahay dadweyne si fiican baan iyaan u fahmay injineer cabdicasiis muumin dabcan saaxiibadayda sida aad ka maqlayso waxa weeye ardaygii wuxuu sameeyey suuqii buu tegey bachelor buu qaatay uu soo baxay suuqii buu tegey wuxuu garan karaa oo uu qiimeyn ku samayn karaa halka ay wax u socdaan waxa uu baran karayana mar walba waxaa laga yaabaa inuu ku saleeyo isagoo khabar badan hayo hase haatee ardayga orday ee waxbarashadii tahay waxay saaxiibaday leeyihiin khabar badan ma hayo oo waxaad moodaa xitaa galaaskii markii uu taga tusaalooyinka ay soo qaadanayaan in inta badan ay ka muuqanayso ardaygii horay ay wax badan ku kala duwan maadada gaar ah oo awoodda saaraya oo kale tusaale ahaan maadooyin gaar ah awood u saaraya oo kale inuusan isagu garanaynin maado gaar ah awood saaro in badan laga yaaba in waxuna jiri karaan dabcan saaxiibaday sidaas leeyihiin oo ardayga hadduu suuqa tago wax badan ku fahmi kara maxaad leedahay بسم الله الرحمن الرحيم صاحبي waxteeda uma dhicin aad uma dhicin inay arrimaha iyo Mustafa view-gooda wanaagsan markaan u imaado barnaamijka ka dhawaajiyay qaybta ugu horeysa waxaan filayaa qofka ardayga ah markuu baad ka dhameeyo in uu u baahan yahay in refreshment ama siino wax uu helo waqti sidii looga dhawaajiyay marka ani waxaan isleeyahay qofka ardayga ah markuu baad ka dhameeyo dabcan waxaan isleeyahay inuu markaas ka fresh yahay qofka markuu degree cusub helo achievement cusub gaaro qofkaas waa mar walba waxa uu qof motivation ah oo ku jirto macnaha dhiiro kala galayso hami kala gala power energy markaas ku jiro awood gaar ah qofku yeelana waxa waaye waqti uu soo wadaa dib u helay xalada markaas qofkaas in dhiiranaan iyo awood iyo maskaxdiisa waxa waa in wax badan dib u furata marka sidaas darteed waxaan aaminsanahay in ardaygu uu ka faa'iideysto markaas energy-gaas iyo motivation-kaas waqtigaas uu helay inuu kaga faa'iideysto in direct uu master ku xijiyo direct masawaad inuu kaga faa'iideysto marka dhowr reason ba haddii uu gaab geliyo waxyaabo badan oo ku imaan kara gaab marka waqtiga gaabka waxa la dhihi karaa inta duration gaabka qofku muxuu qabanaa su'aal badan aan isweydiin karaa inta gaabka ku jiro waxyaabo badan imaan kara qofkii inuu iska nasto waxba qaban waqti loomay uu ka dhigo inuu waxbarasho aad u imaan kartaa inuu iska safaro iyo nooc iyo xogaa uu iska qaato nasiina wax walba imaan kara marka intaas oo dhan waxaan isleeyahay waxa hadana inta badan waa la arkaa way dhacdaa dadka experience-ka ama barnaamijyada ama khibradda u leh waxay sheegaan qofka mar walba uu gaab iyo waxbarashadii masterka baachii masterka markuu gaab kala geliyo waxbarasho markuu gaab geliyo in ay adag tahay qofku inuu dib u soo noqdo dad badanaa ku feelgarooba inta gaab geliyeen gaabkii ku dheeraaday maadaama soomaalina waxaa laga yaaba qofku inuu noloshiisa guuri iyo howlo ama shaqo iska aado shaqadiisu ugu jiro ama nidaamkii inuu kula dheeraado meesha gaabkaas waxaa laga yaabaa inuu dib ugu soo noqo waayo levelka waxbarashada
marka midda kale faa'iidada aan u arko waxay tahay qofka haddii waxbarashadiisa uu sii continue gareeyo sii dhamaystiro sii socdo waxa waaye markii horeba waxa qofka arday u ahaa master markuu sii dhaqaajiyana waxa waaye ardaynimadiisu kusii jiraa oo nidaamkii ardaynimadii iyo kama dhex bixin levelkaas laakiin qofka markuu kasoo dhexbaxo dib ardaynimada ugu soo noqdo waxaa laga yaaba in caqabad uu kala kulmo ama xoogaa uu isla dareemo si ardaynimada dib ugu noqoshadeeda uu dhib ka dareemo ardayga marka muhiimadda waa intaas waxaa muhiim ah mar walba in ardayga uu qiimeeyo baarkiisa markuu dhameeyo in hore masarka aad daaragtay midda kale waxay laga dhawaajiyay sida hadda markuu su-aasha ugu dambeysay ay ahaydba in qofka marka uu gaab geliyo ama workforce uu aado qofkaas inuu experience soo helo waxa environmentiga iyo industryga markaa shaqeynaya sida ugu jira inuu kasoo ogaado as normal qofka markaan dib u noqono bajularkeena waxaa la dhihi karaa inta badan marka qofka bajularka uu dooranayo ama bajularka lasoo wada aadayo waxaa loo badaya qofku inuu asaga aysan ka imaan inta badan doorashada ka timaada xagga waalidka asxaabtii inuu tashi fara badan geliyo qof walba tashi u geliyo waalidkiisa hadday noqoto waa lala jeclaysa dadka qaar waalidka waxay la dooraan inuu aado bajularka field noocaas aadaa yidhahda oo isaga markaas uma haysto macnaha kalsooni badan amba idea fara badan oo markaas bajularka meesha kaga habooneed markasta wuxuu ictibaariyaa tashi u geliyaa waalidkii hadday tahay nidaamkii laakiin qofka markuu bajular noqdo 4 sano bajular dhiganayo qofkaas waa qof gradkiisa inta badan waxaa waaye koray sida la dhihi kara gradkiisa inta badan uu koray 4 sano markuu waxbarashada ku jiro wuxuu ogyahay environmentka sida u socdo wuxuu analyze garayn karaa ama uu sii ogaan karaa qaabka waxay usii jihaysan yihiin 4 sano wuxuu ku go-aamin karaa qofkan waa qof sadgarayn kara goolka uu leeyahay iyo targetkii samaysan kara qofka markuu bajularka duration-kaas u jiro marka sidaas darteeda marka qofkii markuu goolkii hadaafkii iyo nidaamkii uu lahaa u dejisto wuxuu direct u aadi karaa marka isagoo og masterkan in meeshii specializerka markasna waa la ogyahay qofka markii baju yahay waa general knowledge caadi waa inta badan laakiin masterka ahdaafta loo aado waa qofka inuu specialized knowledge qaataa waa inta ugu muhiimsan waa in field gaar ah oo takhasus u aadaa markaasoo kale fieldigaas gaarku takhasus u aadi lahaa wuxuu kusii ogyahay durationkiisa bajularka intuu waday directing usii kaxeena midda kale waxay faa'iido u samayn kartaa qofka ardayga markaasi direct masterkiisa ugu xiriiriyaa waxay faa'iido kaga samayn kartaa maadaama uu arday soo ahaa aqoontii iyo waxyaabihii badanaa maskaxdiisa weliba ku jirta oo kama keensana gaab ma galin wax kama inta badanna waxaa waaye qofka markasta uu waqti wax joojiyaa waxbaa ka luma wixii cusub oo markaas maskaxda sii buuxinay marka ardayga markaas uu sidaas yahay uu gaabka gelin bajularkiisii iyo xirfadiisii iyo wixiisii oo dhan maskaxdiisa ay kaga jirto fieldigaas isagoo haaya master markuu la aado wax badanaa u saamixi kara waxaa haddana midda kale haddii la isweydiiyo xataa oo gaab la aado inta badan markii qofka gaab buu galaa ama ardaygaas problem fara badan la kulmaa problemka ugu weyn oo la dhihi karo waxay tahay haddii uu shaqo raadinayo shaqo inuu helaa waa problemka ugu weyn horta markuu bajular yidhahdaa inkastoo aan ognahay hadda environmentka iyo industryga jira badanaa muhiimadooda mararka qaar waxaa waaye job opportunity-ga inta badan waxaa laga yaaba inuu ka bilaawdo master degree oo qofka bajularka ah inta badan ba lasoo xalinba markii requirementiska la dhahayo master degree ka bilowdaan haddana kambaniyada badanaa waxay usii wacdeen boo la dhihi kara adduunka markasta shaqadii markii hore positionkii marka hore uu qaban lahaa qofkii bajularka ahaa hadda waxaa loo soo requirementiga loogu daraa qofka masterka marka hore requirementigaas markii dib loo noqdo dhowr sano ka hor waxaa laga yaaba shaqadaas qof bajular ah uu qaban jiray haddana waxaa laga yaaba wax isbedeleen oo dadkii dhan waxaa bajularkii inta badan usii yaraa dadka master wada bateen aqoontii kor la aaday companiga wuxuu u baahan yahay marka qofka oo master degree haysto oo wax ku ziyaadin kara badan qof waxbarashadiisa aad u sarreysa wax kusii ziyaadin kara u baahan yahay marka shaqada yara waxaa laga yaaba qofka inuu la tasho shaqo badan marka gaabka markuu qofka markuu caqabada ugu horeysa uu la kulmi karaa la dhihi karaa horta shaqo inuu helo shaqada inuu helo keliya caqabad maaha waxaa haddana caqabad ku ah inuu helo haddana shaqo qofkan dreamkiisa ah riyadiisa ah shaqo uu ku qanacsan yahay inuu helo haddana aad ugu adagta competitoriskana waa fara badan yihiin bajka markii la yihahdo waa competitors xad fara badan waa adag tahay qofkaas inuu ka dhex baxo dadka ardada badana caqabada ay kala kulmi karaan caqabada kale xataa waxaa la dhihi karaa ay kala kulmi karaan waa mushaar salary المينس waxaan waxa waa computeriski waa fara badan yihiin waa shaqadiina waxa laga positionki inuu hal qof ama laba qof shaqo loo baahan yahay dadka soo codsadana waxa laga bajular maadaama fieldigaas uu yahay inay kumanaan yihiin boqolaal marka waxaa lagu kala dilaa inta badan salary oo kale si ay wage ku yihiin caqabada intaas oo jirto waxaa kaloo jira xataa markii si loo fiirsho waxbarashada caadiga ah qofka haddii xataa uu shaqeeyaan uu shaqeyn ama waqtiyadaas dhuma inta badan waa gaar sanadahaas waqtigaas waxaa laga yaabaa xitaa beri markuu dib ugu noqonayo in waxbarashadiisa ama masterka meelaha qaar jaamacada qaar gaarkaas culays ka geliya waa laga yaabaa hadduu gaarka dheeraado
sanado badan noqdaan. midda kale aan u ayidayo in ay waxbarashada qofka uu sii xiriiriyo ay u fiican tahayna waxaan dhihi lahaa qofka as a student markaan la dhahayo waxaa waaye annaga dhan qof walba wuxuu jecel yahay in uu la jaan qaado its our generationkiisa haddii waxbarasho ay tahay hadday shaqo tahay inuu la jaan qaado gaar markaasaa gelisa waxaa laga yaaba qofka da-diisa in isbedel ay ku dhacdo waxaa laga yaaba qofka markuu master aada in da-diisa aada u fara badanta aada u weynaato da-da aada u weynaato generationka markaas uu la qaadanaya uu la fadhiisanaya inay kala duwan yihiin xoogaa gaab uu kala galo marka generationka naftarkiisa inuu israacaa waa tala fiican oo qurux badan waa qofka inuu related isku sii xiriiriyo waa tahay intaas qodobada xoogaan isleeyahay waa macquul waad mahadsan tahay mubaarak dabcan waxaa weeye dareemi kartaa dooda labada dhinac aad kala taagantihiin ma jiraa waxyaabo aad isleedahay faa-iido bay ku leedahay ma isleedahay faa-iido darro lagala kulmi karaa jira in ardaygu u xiriiriyo waxbarashada oo kale ma isleedahay caqabadaha is dhici kara ama ardayga soo wajihi karo waxyaaba sidaas oo kale oo ma jiraan mad aaminsan tahay ha يعني قف إنه كالجويو وحسليه قف صالحان كالجويو وحبرشة وكله إنه سنأولين إنه وضع وحبرشة وكله أما العكس اللي وحبرشة وصل هاي السنة كله حياة سؤال يبغى يدي ذكران أو فرصة كل اللي حكيته إنه يحس كلا سكسيوت لكن ما دام أول إنه مصدر بلاه العكس سكت يعني سكوش بقوها السود وأنا قوة أنا رش أسس عنا سعادية أنا مثلا مجرد واحد كورس هيك إنه بسالفتة مجرد إنه يصير وضع بجيز markii dhawey waxaan ka jawaabay kaliya waxay ahayd badana maxaa horta masdar oo ah ay ka dhawaajiyeen saaxiibadeeda laga soo jeeda oo ah talooyin oo kaliya qofku u baahan yahay suuqa u baahan yahay talooyin ani waxaan aaminsanahay marka arday leeyahay talada u baahan tahay waa gariirkaaga wey waxaa goonayaan maadada aad ku fiican tahay waa ku fiican tahay aagli ta aad ku liidatid ka joog ya un gacanta iska qabto maaha inaad يعني ميرو بقعنت لك شدوك فيرس أما أنتو واحد كو صراحة وحبوا يرينيهم إيجا مش شقفي عن إيجا كل ده حكي دوني صار معك ترى وقعت لي عن حاجة ما بحثوا عن سماع سأسرع يعني صراحة قف باتش برنوكي يعني أو باتش ودكتور أو باتش ودكانيو وأوكيه يعني حكست وقتها ما دوك في عنتي وقتها تأثير هذا المستر كقديه هو وقتها وايو حكومة ومرايتكو أو حوي واحد كوفي عنتها أي واحد كل يتبع كجرانس فالوقتها ما كواحد في عنا واحد تايم نص أنا صراحة هذا هرك عادي ما دام على الأودي وغلق مش كوجه واحد ربع صاحب كنا صفة عن قصة كل عبد العزيز أنا نسيت كوني وقول عطوا صفة فهي قف مركو وتكريجة لما يو هو فريش وقف فريش يعني ولي واحد هاي فريش يعني إذا جو كوتشر فريش بعطيه واحد ما صير طبعاً كتاب إكسامس كي يوهم وكذي يوحي ليش كنتي رأوا تقاني واحد مشكلة إذا تكون كيميس وتسكفان سنتين وش وقص عن سا باك جراوند كارود وقتها ولي معلومات كي في السويك هتشرا ولي فريش بعطيه مركب ما أنا سنة واحد هذا كان بجد بيكرت إيه جرت تأثيره وصحيح بس يفعل مش اللي أنا حكم له تارجت كان يقولش هذا يعني مركب وجانكرت وصحة الشيء وكذا مرايد وقوت هذا وأتقرن السواق كوريا واحد وقتها سوى كله المركب دقيقة أتصور مثل برسونالتك شخصيتها واحد تعشها واحد نعبتها واحد سودهم وقتها من كلام هو كان أو وحياة كله كعور ورموا وين بينه هذا واحد سوفر طبعا حتى السنة هاي واحد يرى هذا إن بير أدلى هنا وش تجش قتك ستي وكل اللي وقت ممكن السنة هاي لكن ما دام هذا دونك جلوبال ونقضي وقرية ونقضي وحلو بهاي يقف انترناشونال إلى نقطة وهذا كيف كان واحد أجا وحرنا يعني واحد أتكفي عنها ما دونك كوالفكيش كابو أقصر يعني بدونك راح كبرت لسوحنا كل نساء نروح على نقول ما نكتب نرفع كلام صاحب كذا شيء أو قفك تايم لوس كان كهذا واحد جرت واحد يراها قف وكير يعني وكسمة السنة صراحة أديك هذا مركز هاي سنة كلامك قفك سنة كواد واتقيا بس أكتيفيتي كوتشرا يسوق فكرية سنة كلابات كلي سنة كواد مكان هذا معي سوق ديفرنسي كده تودري مكرته مركز واحد في عن إن الجنريش كجا اللي سعت أو هل يبتدي تد هاوش ولا أردت هاي العرق مرة أنا قلت صراحة واحد شرتي اللي ما يبدأ سوش طيب كلاس كنا اللي جنشري
stagigii iyo waxbarashadii iyo homeworkyadii iyo waxyaalihii oo dhan waxay ku hayeen soo difficulty ku hayeen laakiin waa wax badan fahansan laakiin lama socdo taaski generationki lama socdo waxaa meesha ka socda mushkilad bay ku haysaa marka waxaa is leeyahay waxyaalahaas oo dhan iyo qodobka ugu muhiimsanaa oo ah wage salary oo tusaalehaan qofka lacagta u qaadanayo muhiim jiddan markaa master tahay inaan dakhli fiican kusoo galan yani at least waxaad soo wadeen dhowr iyo 10 sano waxbarasho soo wadeen dhowr iyo 10 sano inaad wax yar markaa ku shaqayso baaj ku taabsado soo taaganayo waxaa muhiim ah iska qofka marka master iyo lacag fiican ku shaqeyn kara suuqa fursadda ka jirta aad buu fiican master markaa tahay shaqooyinka dadka masterka aad iyo kooban yihiin waxaan intaas inuu kusoo gabagabay karaa aad baa muhiim waa fahmay mubarak Mr. Cabdimaan waxaan rabaa inaan yiraahdo waxaa la yidhahdaa haddii uu qofku kala gooyo sida saaxiibadayna ay aad u cuskanayaan haddii uu qofkii waxbarashadii uu ku sameeyo uu gaab kale oo uu kala gooyo waxaa jiri kartaa inuu qofkii uu gooyinkaasi uu kusoo laaban waayo oo Soomaali baanu nahay inta badan qofku guursan karaa shaqo iska heli karaa waxaa laga yaabaa shaqada uu helay inuu ka fakarayo shaqo ku bedesho ma helaysa dadka tagto waxbarashada marka maxay kula tahay saaxiib horta waa mahadsan tahay asxaabtayda kale waa mahadcelinayaa qofku haddii uu kala gooyo inuu kusoo noqon waayo arrintaasi ma jirtaa horta sidaan ognahay adduunka teknolojiyadu way badanaysaa waqtigu wuu isbedelayaa waxaan joognaa heer qofku isagoo shaqaynta wata uu masterkana diyaarin karo oo halkaas opportunity badan baa ka jirta oo halkaa ma oran karno waxaa jira caqabado waaweyn oo qofku waxbarashadii uga hari karo adoo gurigaaga jooga waa diyaarsan mar haddaad practicalkii hayso oo aqoontii aad bachelor kusoo baratay aad awleygareynayso waxa kale waad ku baran kartaa online ahaan ama distance learning ahaan waad ku diyaarin kartaa marka saaxiibadii halka waxaas u malaynaya inaysan muhiimad weyn halkaas inaysan ku jirin si saaxiibkii wuxuu kale qodobada uu sheegay waxaa ka mid ahaa saaxiibkii wuxuu sheegay xilliga secondaryga markii laga baxo qof arday waxa uu diyaarinayo inay talo badan ku leeyihiin waalidka macnaha saameyn badan lagu leeyahay waalidka asxaabtaada inay saameyn badan ay jirto marka waa sax ardaygu marka uu bachelorka bilaabayo oo secondary ka soo baxay saameyn badan baa ku jirta waalidka talo ku siinaya walaalaha baa talo ku siinaya asxaabtaada talo ku siinaya qofku xog badanna ma hayo talo badan way ku dhacaysaa marka waxaa laga yaabaa wax isagu uusan dooqan inuu qaato oo waa inta arday badankooda 65% waxaan aqrinayay case study laga sameeyey ay boqortooyada Sacuudiga jaamacadda Boqor Fahad ay sameysay caqabadahaas waxaa la kulmay 65% ardayda ka mid ah waxay la kulmaan xilliga jaamacadda bilaab caqabaday la kulmaan 50% ka mid ah jaamacadda sanadka koowaad bahdana mid kale u bedeshaan waayo kuma qancin ama way ku adkaatay sababtoo ah iyaga doorkooda kama aysan iman marka saaxiibadii waxaan weydiinayaa haddii uu bachelorkii uuba dhameeyey qofkaan soo rabaa ku dhameeyay ama ku adkaata ama kolley wuu dhameeyey ama waxaa leedahay haddana mar labaad waxaad ku noqotaa tala qof kale ku siiyey oo taas masterta ku diyaari miyaad kaana ku noqotaa mise waxa haddana qofkii suuqa u dirno uu waqti loogu baahan mawduuca rasmiga ah marka qaato uu kasoo fekero uu fiiriyo uu xog raadiyo isagoo xog u raadsho oo waqti qaato markaasna waa muhiim waa sababaha aan cusbanayo in ay isku xira inay ay tahay faa'iidada ay ka imaanayso waxaa ka mid ah xilliga doorashada macquul maha qofku inuu xog badan hayo uu mastertii macnaha specific uu dooran lahaa waqti ma hayo macnaha waqti lama siin haddii la isku xiray marka waqti uu xog badan ku ururiyo uu suuqa ku tago uu meelo badan kusoo fiisho wax badan uu ku ururiya ma haysto su-aasha intaysan laga fara baxsan ninka la yidhaahdo engineer ninka la yidhaahdo Cabdicasiis ma kula tahay ardaygu bal inuu xog raadiyo si uusan meel mugda isugu gelin oo suuqina tago qiimeyn ku sameeyo sida Cabdimaad uu leeyahay say kula tahay injineer Cabdimaad aad u mahadsan injineer Cabdimaad aniga waxay ila tahay dabcan siduu ka dhawaajiyay isaga injineerka bachelorka markii la qaadanayo waa sax tala waalidka ugu badan familka ugu badan asxaab maybe meelo badan wax ka raadin okay markii xataa qofka uu bachelorka aado uu galo xalada sanadka ugu horreysay inuu ogaado talada la soo siiyey inay wax ka dhiman tahay ama uu u arkaba qofkaan in meesha loo soo dooqay uu dadka ka qaatay inaysan ku habbooneyn sida hadda isaga uu ka dhawaajiyay sanad qofku markuu wado
uu dareemo in meeshaan ay dadkii talada ay ku siiyeen ama familkiisii ay talada ku siiyeen inaysan ahayn fieldigii ku habboonaa uu ka bedeshay isaga joyskaas ayaa keenay isagaa isla keenay inuu taladaas ula garta in ay tahay meelaan ku habbooneyn bedelashadan asiga kasoo dhaadhacay marka waxaan aaminsanahay aniga ra'yigayga wuxuu yahay qofka markii bajularka isaga waa sax waa loo soo dooqay laakiin durationkaas oo bajularka qofka uu wado qof maskaxdiisa iyo garaadkiisa inta badan u qorado wuxuu sadgaraysan karaa qofkaas goolkii ahdaaftii uu lahaa targetkiisa uu yaqaana meesha u socda uu garan karaa 4 sano intuu wado marka waxaa laga yaabaa 4 sano wuxuu ogaan karaa xitaa fieldigan inuu yahay fieldigii ku habboonaa inaan ku habboonayn dadka inta badan way sameeyaan arday fara badan sameeya sanadka ugu horreeya semesterka koowaad ama semesterka labaadba inay jambi garaystaan waxay ogaadeen in fieldigaas oo markii hore lagu qanciyo ama ay kusoo qanceen in uusan ahayn fieldi ku habboon semesterka koowaad waxaa laga jambi ku sameeya ama semesterka labaad laakiin haddii uu ku qanco qofkan ilaa semesterka afraad uu soo dhamaystiray wuxuu sii ogaan karaa xitaa in uu fieldigaas sii dhamaystiro ama in uu specializer samaysto oo masterkiisa meel kale la aado isaga kasoo go'i karna qofka saan aaminsanahay ardayga waa 4 sano wax badan garaadkiisa ku siyaadayo environmentkii marka uu ka xirnaayo si fiican u ogaanayo markii hore waxaa laga yaabaa qofka markuu dugsiga sare soo dhameynayo at least waxaa macquul ah xitaa inuusan kala aqoono facultieska jira iyo faculty walbaba meesha wax u aadayo qofka in businesska hay'adka ay tahay IT hadduu aadi karo haddii ay medicine-ka nidaamkaas u aadi kara xitaa inuusan aadi karayn laakiin haddii loo dooqo xitaa inuu medicine-kii dhankeeda aado waxaa laga yaabaa markuu bilaabo inay uu arkay in medicine-ka uu ku habbooneen inuu ka weecan karo semesteraas inuu bedesho markuu kasoo wacay isagay ka timid go-aankaas marka waxaan aaminsanahay qofka 4 sano qofkaas waxaa waaye qof oo targetkiisa wixii samaysan kara waa aaminsanay inuu yahay ardaygaas waa mahadsantahay haye hadma saaxib waa sax suu sheegay laakiin haddana muddo waxyaabaha uu ka dhawaajiyay waxaa ka mid ah saaxiibkii in uu macnaha ardayga uu sanadka koowaad oo kale markuu dhiganay wuu bedelay caqabad baa heshay marka dee waqtiga halkaa ka galay oo ardayga semester inuu dhiganay kasoo qaad at least semesterkii koowaad inuu dhigtay oo haddana sanadkaas uu semesterka lagu khasaar sanadkii labaad badana dib u bilaabay kuliyad kale soo hal sano ma khasaaray khasaaradaasi waxay ahayd mid laga hortegi karo waynu ka hortegi karnay laakiin way dhacday marka ka waran haddii masarkii haddana uu sidii kala sameeyo uu haddana uu ku felgalo haddana mid kala bilaabo uu taas kala gooni haddana bilaabo marka halkaas xooga caqabad baa ka jirta midda kale oo jirta waxay tahay xilliga markii uu meesha aado markii uu sanad uu shaqo aado sababta lacagtan haday waa ka hadasheen salariga markastoo bachelor wuu yaraanayaa laakiin muhiimadeedu waxa weeye inuu helo qofkan practical wax uu soo bartay apply kaliya uu ku helo meel uu ka helo issue ka heli lahaa xogta masterka wuxuu ku diyaarin lahaa takhasuska masterka wuxuu ku diyaarin lahaa midda kale oo inuu qofku iska fadhiyo oo kale inuu qof iska fadhiyo oo meel iska fadhiista kama hadlayno qofku aan waxbarashada ku jira ama inuu xog ururinaya labadaas qofku inuu waxaanu saaraynaa muhiimada kuwaad siinaynaa aad iyo aad anu ka hadlaynaa waa mahadsantahay ninka la yihahdo Mustafa waxay kula cabdishadaada mahadsantahay baashu waa meel xelinaysa weli aada xasaasiya saaxiibkii cabdimahad qodobada taabtay waa qodobo aada muhiima sidoo kale saxaabtayda sidoo kale waxaan rabay marka inaan ku darsado 2 kelmo labada qodob waxay yihiin horta cabdimahad marka udigay ka dhawaajiyay waa yani salary ama wage premium waa sax ardaygu bachelor markuu yahay iyo markuu masterka yahay yani wage premiumka way ka duwan yani salary way ka duwan laakiin wax saas u weyn maaha oo wax iska dawlad laakiin caqabad waxaa jirto ardayga masterka uusan weli ka baxsanayn hadduu waxbarasho soo helo waxaa waa ignore karin caqabadaas waxaa waaye work experience waa la weydiiyaa shuruudaha ardayga markii yani vacancies kala soo bandhigo oo la rabo in yani ardaydu soo ballangareeyaan markii la tusaale kale positionka waxaa loo baahan yahay arday master noocaas ma arday horma heli karaa arday khibrad wuxuu heli karaa markuu bachelorkiisa dhameeyo waxaa u furan jaanis ah intuusan masterka bilaabin inuu ku raadiyo ugu yaraan 2 sano 1 sano ugu yaraan kaa oo yani work experience waxay u fududeeyeen ardaygu inuu yani CV-giisa iyo waxaa waaye curriculumkiisa ku darsado berri si uu uga badbaado markuu master soo dhamaysta masterkii uu yani shaqa u abaalgareeyo aysan caqabad ugu noqon caqabadaas way jirtaa waa inuu gareynay still ardayga masterka la qabsanay waa muhiim mushaarka waxaa akrinayay case study ama case based oo ahaa case based laga sameeyay America
maraykanka waxaa lahay ardayga bachelorka ah markuu waxbarashada bachelorka dhamaysto mushaarka uu helayo sanadkii celcelis ahaan waxaa lahay waa adiga 50,000 $50 sanadkii sidoo kale ardayga masterka ah celcelis ahaan waxaa lahay $62,000 farqa u dhexeeya dareemkana waa 12 yani $12,000 baryeer marka way bariman uu jiraa laakiin farqa weyn waa muhiim laakiin waxaa ka muhiimsan jaanisada kale oo heli karo ardayga haysto work experience markuu abalagayo master degree-ga jaanis uu heli karo yani field study course-kaas inuu la jaan qaadi karo markuu dhamaysto kadib shaqada badan oo yani vacancy ama market opportunities jaanis uu heli karo wuxuu heli karaa jaanis haddii lagu xiro shuruuda ah master waa inuu haystaa maadadaas ugu yaraan soo shaqeeya ama work experience uu leeyahay waa ka baxsan ardayga masterka laakiin how uga baxsana waa su'aal ardaygu markuu bachelorka masterka isku xiro oo la weydiiyaa hana bari markuu soo qaato work experience sababta uga baxsan والله ستة مو isla su-aasheeda isla qodobka isaga kuu sheegay ardaygii hakadka galay suuqii tegay qiimeyn ku sameeyey haddana soo helay wax la yidhahdo khibrad ku filan waraaqihiisu ay qurxan yihiin is leedahay shaqadu xitaa marka laga soo tago xagga wax la yidhahdo salariga kala duwanaanshaha salariga ee bachelorka iyo masterka haddana ardaygii hakadka galay wixii uu kan kaga fursad badan yahay is leedahay inuu haysto khibrad badan سؤال شاتان تفسير أو work experience شغال سؤال أنا واحد يشتغل شغلين في رمضان أو كلا أو ماستر ماستر ولا هاي مركا قفك ماستر عادي أو لا جاهل لكن بكالوريوس واحد لا work experience على جاهل ولي بيصير experience مو بيها وحكى عليه ما عندي تركيز ولا صعب مالك ماستر قف كبر أنا جاهل بعد شو واحد وراه هي ماستر ولا experience already bachelor هو كبحرة بس يسمى ما هو بناء ماستر experience هذا كامل يا مركا experience هو واحد صعبة هو واحد هل ما كو إجماع يعني واحد يرى يعني bachelor كو كلمة واحد صعب ونروح وحري مدة كلا أو يعني عقبات يعني قفك واحد يشتغل بدون كهرباء وكارية حتى الصومالية أو كلمة كانت فيرسي dadka baajka intaas ka farabateen dadka masterka aba waxa yiraahdo ka fursad fiican marka la masterka hada hawada ka sii baxayo waxa la leeyahay master khibradiisa wata ma baahna baleey anagu master clear ma baahna oo qalalaan ka orday ma baahna master experience wata masterka soo qaatay experience wata oo ma baahna marka ma isdeen karaa master experience wata qofka hakad u baahan yahay si experience u soo qaato هكذا كم حكيت عليه لسه حكي سبب تجيب already أنت هكذا كل شيء ترى كم قناة نبى تجيب ماستر بقعته experience يصير مستر يسوي مركا ماستر كي ولا مركا صوت قعته يعني ماستر هو قعته experience يصير مقتصر قوته كي ولا مصر قارن صوت نيك experience يصير هو ترى لقارن experience مركز الشريرة شكلت كل شيء تحولي التكنولوجيا هو صعب والواحد ولا جبت الفاسس عصبة صباح خيال عصبة صباح وحيل ورفش كل ما لقيت جات أنا عليها هذا مشكلة أن هستقرأ خلنا يعني صراحة الصومالي حلالية هذه يعني شداد بكتب الحركة وهنتي ما تعال لكن تذكي بتريو معي يعني صورها ولا يقعد بإنرجي كان بها كركعة ما في واحد في عند إكسبريس يعني هو واحد في عند إكسبريس جدا بعد هش ومركا وحيلها عصبة قالت مكفي أنا سليم وحيلا كل مرسل هاي مصطفى ربما صحيح كذا marka waxa ka cudurdaaraya maadaama injineerka iyo injineerada technology yani barteen example soo wanaagsan waxa laga yaabaa business technology isticmaalo asoo daahaya to saaxiibkii wuxuu yiri ardayga master kana kulmay still master bar experience waa soo wada kan already waxa meesha ka cad experience iyo muhiim marka leena bachelorka ardayga ku dhameeyo iyo gaar xijiro ilaa masterka ma ahan ardayga iska fadhiyo laakiin waxa waa inuu shaqo raadi waa inuu workforce ku biyo soo ka tag ma helan sameeyay waa chance la leh haduu helay waa wax kale laakiin haduu waayay waa qasaara dadka ardaygu ku qasban yahay hadii financial u fudeynayso inuu master aado ama u diyaariyo qasban ka waajib laakiin waxa waa ana wax isku waxa waa haduu ardaygu uu awoodo markuu bachelorka dhamaysto inta soo qatabo shaqo helay chance ka iskaadi marka opportunities ka shaqo
maxaa u fudud ardayga waxa u fudud berri markii uu isagoo bachelor uu soo shaqaystay 2 sano ama 1 sano masterkii diyaariyey masterkii haddana soo qaatay saaxiibkiis kaloo master ahayo oo sanad ka horreeyey oo sanadka saaxiibkiis asagoo masterkii oo khibrad haysanin inuu magaaladii fadhiyo suuqii yani Soomaaliya joogo wax shaqo waayay muxuu ku waayay experience laga ku waayay laakiin ninkan halka sano ka dambeeyay already experience hore u soo qaatay markuu imaado jaanis waxa u fudud oo ninkan uu waayay asaguna waata cabdicaziz waqtiga aad loo gooyay anigo aad iyo aad u mahadsantahay qodobada haddaan guda galo waxaa isleeyahay qodobka ugu dambeeyay ahaa qofka markii ardayga bachelor ka dhameeyay shaqada aado xilligiisa shaqo inuu bilaabo waxaa laga yaabaa salarigiisa salary xaggeeda laga dhawaajin kasto markiisa masterka uusan ku level ahayn laakiin waxa waaye waa maybe salary oo equivalent ku ahayn waxa laga yaabaa bachelorkiisa markaan meeshaas ku nimaano xitaa oo aan ka hadalna xitaa shaqada dhexdeeda muhiimadda keliya ma noqon karto mogtahay money lacag iyo nidaamkaasi salary keliya muhiimadda mararka qaar waxaa waaye qofka value-ga inuu qiimo dareemo ardayga markuu shaqeynayo meel shaqa aad workforce aad fadhisid ama ka shaqeynaysid fieldiga asxaab dad kula shaqeynaya haddii ay kaa wada degree sareeyaan ay yihiin master PhD aa dhexda ugu jirtid waxaa laga yaabaa markaas feelinkaaga xitaa inuusan qurux badnaanin ma noqonaysid qof valuable ah oo qiimo ka dhaxlay meeshaas saa isku dareemaysid inside marka waxaa la fadhisaa dad macnaha kaa digriyey iyo wax sareeya waxaa laga yaabaa markaas oo kale caqabado badan aad kala kulmi kartaa waxaa laga yaabaa levelkaaga ma sare qaadi kartid leadershipnimo iyo heer in aad macnaha hoggaan aadid iyo ma ku haminaysa waayo inta badan waa laisku xantaa ma adaan ugu yaraan xataa waxa ku weydiinayo dadka isla shaqeynaysaan digrigaaga markay ay ogaadaan inaad digrigaaga bachelorka ku egyahay waxaa laga yaabaa in aysan xaggaaga ka filanba in culeys badan iyo nidaamkeeda midaas mid waayo oo qofka naftarkiisana masterka wuxuu ku gaarsiinaa in aad dareentid macnaha qof qiimo leh inaad yeelatid ruuxigaaga kor u qaada qof markuu masar yahay waxaa dareemaya xogaasi nafsadaada inay dhisan tahay midaan u nimaado midaan dambe haddaan soo guda galo oo ah experience-ga waa sax horta experience waa muhiim khibrada ama skills wax yiraahdo haddana kuma xirna keliya shaqada waxaa laga yaabaa qofka isagoo arday ah wax baranaya inuu helo haddana experience inta badan intention hadda marka qaar loo diraa soo ardaya qofka intention uu soo qaataa intention uu qofka qaadana isagoo arday ah internship markuu qofkaas sameeyo internshipka wuxuu ka heli karaa skills uu kusoo helaa xirfado iyo xoogaa experience u noqonaysa qofka inuu company la shaqeeyo waxbarashadiisana wato duration intuu ku jiro waxbarashadiisa wuxuu sii yeelay wuxuu qaadan karaa skills haddana markii la dhahayo skillska iyo degree-ga wax isku barbardhigi kara ma aha nolosha caadiga ah skillska waxaa laga yaaba diploma ama heer yar meel aa ka gaarta inaad ku heshid 6 bil 7 bil sanad skills inaad qaadid adoo waxbarashadaada wato laakiin degree-ga waxaa u baahan tahay waqtigaaga iyo noloshaada inaad qayb ka siisid master markaa inaad dhigatid waa in noloshaada qayb ka mid ah noloshaada qayb ka mid ah inaad siisid waxbarashadaada degree-ga si qiimaha u noqotid marka skillka waxaa lagu dhex qaadan karaa waxbarashada dhexdeeda ma ani ma aaminsanin xitaa in la kala qaada waa tahay sidaan islahay waqtiga lagu yaroobay waa gabagabadii gabagabadii horta labada dheefiyo labada dhinac laga arkaa waxaa isleeyahay conclusionka marka la fiiriyo waxaa la yidhaha timeku aad buu muhiim jiddan wey conclusionka timeku muhiim jiddan weeye qofku inuu timeka ka faa'iidaysto ma aha qof 40 jiro oo kale inuu master galaa waa misleeyahay marka waxaan isleeyahay timeka laga faa'iidaysto noodkaaga halkaa gaabano waa taa mahadsantahay cabdimar gabagabadii saaxib aad baa mahadsantihiin dhalinyarada iyo asxaabta kale ee bulshada waan uga celinayaa timeka waa muhiim waa sax haddana timeka in management hawada dareeyo laakiin waxaa leenahay laga faa'iidaysto si uu mustaqbalkaaga u noqdo midaad u riyaahdo ood ku faraxsan tahay waxa masarkaaga qaadanaysidna waa wax la hubo oo aad qiimaha dadka kaga yeeli kartid kaa ka duri kara suuqa ka duri kara laakiin aadan baran waxaadan adigu tala ku lahayd dad kuusoo yeeriyeen suuqana laga yaabo inuu xaami yahay qof kasta yaqaan marka experience hala helo intaadan ilaahay waxaad khasuskaaga maxaad u baahan dalku muxuu baahan yahay waa mahadsantahay mustaf gabagabadii yaa kula tahay cabdirashiid aad mahadsantahay aniga waxaan dhihi lahay hal qodob waxaa jira inaan wada aragtin wada akhrisan aan leena book oo qoray Robert Kiyosaki buuggan oo Richard Order Abdulfaqir Abdulqani Abdulfaqir buuggaas waxaa looga hadlaya waxaa waaye buugagta aadka ugu qiimaha badan oo la gato oo novelist oo aadka u socodka badan buuggaas waxaa looga hadlaya waxaa waaye aabe yani ku taliyey wiilkiisa kula taliyey inuu wax barto yani more qualifications
tan qabo bachelor qabo master kuda PhD ilaa heer sare aabana wuxuu weligiis kula taliyay inuu shaqaysto yani shaqayso labadooda meesha kala aadin waa arag buugas adaa ama dareemi karnaa shaqadu waa muhiim waxay muhiim u tahay yani horumarka qofka inaad haddaad rabtid inaad guulaysatid oo guul gaartid waa inaad يعني لازم إنه يلعب سوق تكتيك تست سبيس الصوت تست كله وقتها وحتى تو أنقد الصوت أسوأ أمام السوق أو وقف يعني ركوعين ليش كنتو تنسى ليش كذا وهو environment يعني external environment internal environment قف وين وصلنا وحنقول ترى هاي البلدي لا بد من على chance يعني وفائدة كويس أرض يقول chance وقت يسمى ومين وحبشر كل حساب الماستر إلا يصود دياريو يعني وحيد عليه حواي ويلكني haddii uu sameeyay ardaygu masterka soo aadinay inuu bachelor ka dhameeyo oo shaqaystana ayadana waa faa'iido kale waa tamaasanta hadda gabadhi talada adoo raacayna gabadha ana leeyahay qofka noloshiisa inuu gaaro macnaha suuqnaanshiyo iyo heer security inuu gaaro nafsadiisa inuu kalsooni geliyo waxay ka bilaaban kartaa isla master degree bachelor degree waxaa laga yaabaa qofka inuusan weli kalsooni ma gaarin wax ka dhiman هذا الدين كهم درد علاقة أخرى كم درجة إن قدام الله مرسل مرة كم كقارئ وحلو بدنا على بعض كوني لواتنا على بعض الأشياء كنا نقول إن كنا بعض سجاشن عم إن مكان كلام ماستر ديجري في هذا عن فكان سيسجل فكان سيسجل إنه جاري كلام أنت بلا سيرة عشان أصلا هاي أرض يوسف كلاجين عن وقت يسوق من حكا كسر منه ويعرف تحدي أنا مكيس ماستر ديجري على وجود ما يساعد يصير معنا aad baad u mahadsantihiin si wanaagsan baan u fahnay waxaa caaway dood igala qaybgal injineer mubaarak oo asna sanadkan jaamacadda ugu eg tahay masterka iyo bachelorka la israaciyey wax gaaban ana gelin sidoo kale cabdicasiis muumin cali muumin oo isaguna sidoo kaleeta sanadkan masterka dhugay sidoo dhanka kale waxaa fadhiya saaxiibkii cabdimahad oo isna bachelorka kadib waqti iyo shaqo soo geliyey dabadeedna masterkii bilaabay oo hadda gabagabo u tahay sidoo kale waxaa ila jooga oo asna doodda nagala qaybgelaya master mustaf oo isaguna sidoo kale waqti soo geliyay ama hakad geliyay waxbarashadii si uu ama shaqo u bilaabo ama u sameeyo aad iyo aad baad mahadsantihiin mubaarak ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kordhiyo wanaagu kullibaa israace ha kulmeen dadweynu kaskooda iyo maankiyo ha kulmeen dadweynu kaskooda